kii u saaxiibka ahaa bishaarada nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo furtihii magaalada Qustantiniya Maxamed al-Faatix. waa amiirkii furtay ee xoreeyay magaalada Qustantiniya iminka loo yaqaano Istanbul ahna magaalada ugu weyn dalka Turkiga. waxa uu dhashay Maxamed al-Faatix 20 Abriil 1429 miilaadi oo waafaqsan 26 Rajab 883 Hijriya. aabihiis wuxuu ka mid ahaa amiiradii muslimiinta kana mid ahaa amiirada dowladda Cuthmaaniyiinta. aabihiis si uu tababaro wiilkiis waxa uu qabtay cilmo aad u cilmi badan, Allah ka cabsi badan, si ay ugu gubaabiyaan diinta Islaamka iyo jihaadka. macallimiintiisi waxaa ka mid ahaa Sheekh Akhshamuddin. Sheekha marka uu wiilka yar casharka u dhigo ayuu maalin walba u kaxeeyaa xeebta, markaas ayuu sheeda ka tusaa magaalada Qustantiniya oo meel fog laga arkayo. markaas ayuu ku dhahaa, ma arkaysaa magaaladaas waxaa lagu soo dari doonaa magaalooyinka Islaamka. wuxuuna ku dul akhriyaa xadiidka rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee ahaa: latuftaxanna alqustantiniya falanicma alamiiru amiiruha falanicma aljeyshu dalika aljeysh. waxaa la furan doonaa magaalada Qustantiniya, waxaa liibaanay amiirka hogaaminaya ciidankaas. waxa uunu sheegaa cidda xaqiijinaysa inay asaga tahay, barakada iyo khayrka rasuulka sheegayana helaysa. aabbihiisa markuu dagaal aadayo hore ayuu u kaxayn jiray wiilkiisa si ay cashar ugu noqoto, hadhowna ugu fududaato hogaaminta ciidanka muslimiinta. marka uu aabbihiisa dhintay, asaga ayaa noqday amiirka muslimiinta, wuxuuna ahaa wiil aad u yar, da'diisuna ay tahay keliya 23 jir. mushkilado badan ayaa jiray xilligaas, gaar ahaan dowladihii gaalada ee xuduudda la lahaa dowladaha Islaamka ayaa mid walba waxay doonaysay inay samayso dhul ballaarsi oo ay wax ka qabsato dhulka muslimiinta. waxa uu isku keenay Maxamed al-Faatix dadkii caqliga lahaa uguna waxgaradsanaa muslimiinta si ay ugula taliyaan mushkiladahaas tirada badan. waxay liis dheer ugu soo qoreen dhammaan mushkiladihii iyo xallintooda. Maxamed al-Faatix markii uu arkay mushkiladahaas tirada badan, haddii mid xallinteeda la bilaabo qaadanayso waqti dheer, ayuu wuxuu ku hadlay hadal xigmad badan: noloshayda iyo waqtigayga kuma lumin doono xallinta mushkiladahan. intaas kadib Maxamed al-Faatix waxa uu qaatay go'aan iyo arrin aad u wanaagsan, taasoo ah inuu furto magaalada Qustantiniya, oo haddii uu ku guulaysto furashada magaalada Qustantiniya, dhammaan mushkiladahan dhan ay xalismi doonaan. furashada Qustantiniya waxay ka mid tahay dhacdooyinka taariikhda kuwa ugu waaweyn uguna muhiimsan, waana furashadii caasimadda dowladdii Bisantiyiinkii Rum ama Roomaanka Bari. Maxamed waxa uu go'doomin ku soo dhigay magaalada muddo usbuucyo ah. taariikhduna waxay ahayd 21 Jamaadul Awwal 857 Hijriya oo ku beegan 29 May 1453 miilaadi. furashada Qustantiniya waxay gebagabo u ahayd isku dayo badan oo ay muslimiintu sameeyeen oon dhammaantood ku guulaysan inay furtaan. waxay soo bilowdeen isku dayadaas khilaafadii Umayyiyiinta, Cabbaasiyiinta, ilaa uu ka furtay Maxamed al-Faatix. Maxamed waxa awood iyo tamar siinaysay axaadiista rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo gubaabintii uu gubaabin jiray macallinka yaraantiisa. wuxuuna ku dadaalayay inuu noqdo bishaarada nebiga iyo cidda helaysa barakada iyo khayrka. ragga ku aasan agagaarka magaalada Qustantiniya waxaa ka mid ah saxaabigii weynaa Abu Ayyub al-Ansaari oo ka mid ah raggii isku dayay inay furtaan magaalada Qustantiniya. Maxamed waxa uu qalco ka dhisay daarta marinbiyoodka Bosfor ee isku xirta Istanbul qaybteeda Yurub iyo qaybteeda Aasiya si uu ula socdo dhaqdhaqaaqa magaalada. waxa uu diyaariyay ciidan tiradiisu gaarayso 3,000 oo askari. sidoo kale waxa uu amray in la keeno hubka ugu waaweyn ee xilligaas dunida yaalay. waxa uu kaloo amray in la dhiso madaafiic aan horey loo arag. waxa uu soo kireystay injineer Jarmal oo muhiimadiisu tahay samaynta madaaficda. waxauna u dhisay madfac weyn oo loogu magac daray madfacii suldaanka. 13 maalin ayay suldaanka iyo dhalinyaradiisa wadada ku soo jireen. 26 Rabiicul Awwal 853 Hijriya oo ku beegan 5 Abriil 1453 ayay soo gaareen daafaca Qustantiniya. 2 ragcadood ayuu dukaday, wuxuuna ciidankiisa ku booriyay in Ilaah dartiisa nafta loo huro iyo qiimaha uu leeyahay jihaadka. maalmihii ugu horreeyay ee dagaalka muslimiinta waxaa soo gaaray khasaaro aad u baaxad weyn. magaaladu waa magaalo adag, derbi dheer leh. ciidanka difaaca magaalada waxay derbi ka soo tuurayaan dab holaca wixii ka hor yimaada gubaayo. inkastoo madaaficdu suldaanka ay ku socdeen magaalada, haddana ciidankii ugu horreeyay ee isku dayay inay magaalada galaan intooda badan way dhinteen, qaarna gacanta Bisantiyiinta ayay galeen. arrin adag ayaa soo wajahday ciidankii Maxamed al-Faatix, laakiin waxaa aad loo xasuustaa hadalkii uu dhahay Maxamed al-Faatix:
mar aan fogeyn Istanbul waxaan ku yeelan doonaa qabri ama carshi. Waxa uu amray in madaaficda si adag loogu garaaco magaalada. 19 Jamaadul Awwal 857 Hijriya oo ku beegan 26 May 1453 miilaadi ayay weerarkii kama dambaysta qaadeen muslimiinta. Waxaana la isku raacay halqabsi ah, dhimasho ama furasho. Maalintaas markay qoraxdu soo baxday ayay weerarkii kama dambaysta qaadeen muslimiinta. Waxaana si aad ah loogu garaacay magaalada madaaficda suldaanka. Waxaana laga dareemay magaalada afarteeda dhinac. Ugu dambeyntii muslimiintu ay ku guuleysteen inay furtaan oo waxaa yimaaday nasrigii Allah. Suldaanka marka uu magaalada soo galay 2 ragcadood ayuu dukaday. Waxauna Qustandiniya u bixiyay Islaambul oo micnaheedu yahay waxay noqotay magaalo Islaam. Magaca haatan ee Istanbul waxa uu ka yimid magacii ahaa Islaambul oo u bixiyay Suldaan Maxamed al-Faatix.